ninka ayaa dhawaan dhamaystiray furiinkiisii xaaskiisa markaasaa jacaylkeedii ugu horreeyey si degdeg ah u yimid diyaarna u ahaa inuu booskiisa buuxiyo laakiin isla markiiba haweeney kale ayaa halkaas ka soo martay markii ay maqashay inuu hadda singal noqday waxay si degdeg ah uga qabatay gacanta oo si toos ah ugu jiiday xafiiska isku diiwaangelinta guurka laakiin saacad ka hor intaas markuu ka baxay xafiiska furiinka laba gaari oo raaxo leh ayaa xaggiisa u soo ordayay wuu arkayay iyagoo soo dhowaanaya hase yeeshee xitaa isma ruxin maxaa yeelay darawalku wuxuu ahaa jacaylkii xaaskiisii hore ee muddo ka maqnaa ninkaasi wuxuu si geesinimo leh ugu qirtay jacaylkiisa haweeneyda dadweynaha hortooda isla markaasna wuxuu ku jeesjeesay ninkii isagoo leh inuu yahay qof aan waxba ahayn markaas baa si lama filaan ah gaari kale oo raaxo leh u soo muuqday oo si toos ah ugu soo cararay dhanka gaariga jacaylka hore wuu baqay gacmihiisana waxaa ku dhacay gariir wuxuu isku dayay inuu difaaco gaarigiisa qaaliga ah taasoo ka dhigaysay mid gebi ahaan ka duwan deganaanshaha uu ninku muujinayay markii hore markaasaa haweeney aad u qurux badan oo kalsooni leh ka soo baxday gaariga labaad waddada ay u socotay waxay ahayd mid sharaf leh markay ookiyaalihii iska bixisay indhihii ninka ayaa isla markiiba iftiimay waxay toos u weydiisay hadda si run maa singal u tahay markuu u xaqiijiyey waxay hal ilqabsi ku eegatay xaaskiisii hore dabadeed waxay gacanta ka qabatay ninkii yaabanaa oo gudaha ugu jiiday si ay u diiwaangeliyaan guurka ninkii wuu wareeray gebi ahaan xitaa wuu isku dayay inuu cararo laakiin dib ayay u soo jiiday oo halkaas ku canaanatay waxay ku tidhi xaaskaagii hore xitaa kuuma baahna markaa maxaa diidaya inaad qof aniga oo kale ah fursad siisi wuxuu xasuustay sida ay xaaskiisii hore u khiyaamisay iyo sida aan wax qiimo ah loo siin haddana qof doonaya taas waxay ahayd fursad cusub oo uu mudan waxbaa gudaha ka togmay wuxuu soo bixiyey dhammaan dukumiintiyadii loo baahnaa hal daqiiqad gudahoodna waxay noqdeen nin iyo naag sharci xitaa waxay kor u qaadeen shahaadada guurka iyagoo u tusaya xaaskiisii hore una sheegaya hadda waa ninkayga